قبيل كاغا نو شيك شك ee ku dhageysanayo Soomaalidu qabiil weeye ilaahayna qaxooda qabiil shucuubana ka dhignay shucuub qabiilada ka dhignay waxaan ka rabaa qabiilkaaga inaa u sheegto shacabka Soomaaliyeed wax badan baa isqarqarisay sida qabiilku ku cunayeen والله أنا بعد وخصبت ملاهي قبيل كاي شيء يا ما سومالي قبيل كاتا نو شيك تي markay dhiga ka maqleen markay dhiga ka maqleen markay ma degna miya anaga taaka waa waa degana khasab waay waa lis barana laakiin waqtigeed ma laakiin caadi waa insha Allah waa sheegi doonaa nin u jeero oo ciise madalooda ma tahay mise maahid yes waa ما شاء الله انت اصلا قربا ان عيسى متقنا عيسى مدلود هنا تاي waxaan aad u naxay saakay markii Cabdullaahi Xaaji iyo Bashir Xaaji ila hadleen oo la ii sheegay in isbitaal ku jirtay Bashir soo dhaafo dhan isbitaal ku jirtay waxaan ku rajaynayaa in Ilaahay ku caafiyo subhanallah insha Allah caafimaad taam Ilaahay ku siiyo oo fadhigaaga iyo sida ku soo laabato marka waxaan ku sheegayaa caawa shamsi la qaadayo إلهي كوسو ديدي ما أهان أنا وأنا قف ولينا قف ما عايد ولينا قبيل الصومالي ما عايد ولينا قف ما ظلمين نينا أدوه بناه أو فكتة مو لصونا وعي أو لحاجز الكلام ما فهمت لكن أنا وأنا هوين مكري عيسى هين صومالي مو يا أرجع كوسو قاتي صومالي ما لو كنت تقولينا إن دقيقة شو ما والله خليني ما دابو يعني اليوم ما كنا صومالي ما لو كعي هذا الصومالي ما اسكت أجناو فرق فوق كام سيسن ما أنا ستيل يا ما يقف قبيل مو كذا طبعا هذيك أنا بقول ما أنت شغل كل هاي واحد لغور ريحاي أنا ما تحت أنا هوية أودي هوية كم ده هاي قبيل أف قبيل ما يوصل فريسة لكن أنت حلو شيء يا ملا لك تاني أسحاجي وما هن هوية معها هنا لقانا عليك أبتسجيس iyo saako daba joogay heerku ka dhashay halku ka yimid asal ahaan aan xaqiijiyay Bashir Xaaji la hadlay Cabdullaahi Xaaji la hadlay ma fahamtay qof nasabkiisa laga saari kara qofka nasab weey waxa waa nasab qabiilnimada waa nasab ya lima sax marka anaga Soomaalinimadii ku ahayd kama leexinayn maadaama ciyaalka xaafadda aad tahay maadaama aad qof qabiil islaamid aad nacabayn maadaama aad qabiil caayin arinkaaga baarayay adoo iga raaliya arigaaga markaan soo baaro waxa ii soo baxday asxaajiyo inay jiraan rag YouTuber ah oo YouTube-kaas xifaarteeda ka dhaxeeyo oo kugu naxay oo ka naxay maanta view haysato iyo subscribe haysato intaana inay tahay dhibka sababtoo gabadhii waa la hadla suur waxay tii wiliga xitaa ma xumayninka dhibdin imageysan wallahi gabadhaas darteed ma gabadhaas waa dadka isku dhow Malaysia ka mid nahay saaxiibaan nahay anigeeda aan cunto u keen jiray yani waa isku fiicnaan ilaaha u naxariistay koodhe laakiin dadka Soomaalida ayaa waxay noqdeen markaan yani goobta ku caawinaysay soo duub markaa la hadlaysay soo duub qoraalada isku qorteen soo duub iyo cadeem iyo waxaas ay noqdeen maanta sababtaas aan u soo jawaab waayay sababta uma qanaayna yani dibtali geystay ama yani waa shamsi li u qaadan maahan aniga iska xanuunsan aniga hawadaas kama qanaado baro في عناي يعني خوف أول شيء أنا مي دتك بدنا عابي خوف شك أنا مي هران أو سؤالها لكن صوت أو مخناي problem كاز جرى درتي اسمعنا أنا هنوصل إن شاء الله يسود أنت إما خلاصه وفانتين مركب هواي وأسوأ لندن ودي إن شاء الله أنكسر هذا عاو كور حالة عافمك عاد مو فريسة كتا وراد داهرو ما يمغلسا فديستي الحمد لله ورجينا بريتني نصوف فديستو حوالي نبرك وحي جاري marka insha Allah waa rajeenaa inaan ka kaco tartiib la waaye wadaaro way maqlaysaa wala gaaray wala gaaray ina mari waata la yeedhaya soo baxa qof walba wuxuu ka hadlayaa saddexaajiyo laakiin 12 sano ka hor marka inta ka tagay noo ambalaas saaran oo Cabdullaahi dhabarkii saare dadka hadash malaha Cabdullaahi insha Allah anoo dhaawacan qaada hadana waa kana anoo bulshadadan ijaalihiin ay soo celisay برادو waxaa ku leeyahay maasan tahay inta ka horeyso waxa halkaan aad iyo aad u mahadcelinaa dhamaan mas'uuliyiinta dawladda iyo team 27 dhamaan waqtigoodii soo horay soo dhaweynteeda waxaan filinay ayaa dhacay oo waxa maqli jiray
مغلي جرت هبل ودرين هلا والله أسد حاجيو يسولو مقالة مقدشو dadku jecel dawladku jecel shacabkooda jecel madax meel ka sareyso la saraaxa ma jirto qof bini aadan la geysto maanta halkaas lagu geystay sababteedan adiga leh way waxa taan wanaagsan qof xun hadaad ahaan lahayd wallahi billahi lagu ma soo dhaweeyeen taa ugu nin wanaagsan oo Soomaalinimo ay ku astaysan tahay baa tahay hiil iyo hooba leh walaalkay guuleyso حسوسان جلسي لكن وحي كوغو دعي عفو الله وعما السلف إلهي دنب دافا كاغدقو بلشداس وجعل ومانتا مجا يمضح بكوسا ولا بحي كوها صورا العاقا كوها وليس إن شاء الله تعالى أمان الله